bandhig faneedkan ay horboodayeen fanaaniinta Farxaan Xidig Lafoole, Raxmad Ruuxi, Faadimo Door iyo Muslimo Qaasin Hilowle oo dhammaantoodba dhawaan dalka dib ugu soo laabtay ayaa micnaha laga lahaa wuxuu ahaa in dhaqaale looga ururiyo dadka darbijiifta ee caruurta u badan dhibaataduna ay ku haysato habeen iyo dharaar derbiyada caasimadda Soomaaliya Muqdisho. bandhig faneedkan oo xalil ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Banaadir, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyeed, qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Muqdisho. fanaaniinta ayaa hore wuxuu sheegeen in dhaqaalaha lagu soo gelayo bandhig faneedkan inuu noqon doono mid xarumo lagu xanaaneeyo loogu sameeyo dadka darbijiifta ee Muqdisho ku dhibaataysan. wadani iyo jacayl oo ay jeclaysteen dhammaan dadkii ka soo qayb galay ayaa halkaasi waxaa ku soo bandhigay fanaaniinta dhawaan dalka dib u soo laabtay. gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo hadal gaaban halkaas ka soo jeediyay ayaa wuxuu sheegay in fanaaniinta ay qaadeen tilaabo loo baahnaa maamulka gobolka Banaadirna uu garab taagan yahay. bandhig faneedku intuu soconayay ayaa waxaan su'aalo weydiinay fanaaniinta Farxaan Xidig Lafoole kuwaasi oo ku aadan qaabka loo ururinayo dadka darbijiifta ah, waxayna ugu baaqeen dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed inay dalka dib ugu soo laabtaan Muqdishona ka dhigaan bandhig faneedyo lacag loogu ururinayo dadkan dhibaataysan. barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij runtii ay dareen fanaaniinta ku dhashay buu ahaa gobolka iyo maamulkiisuna ay mataqaanay garab ku siiyeen sidii wax loo qaban lahaa barnaamijkan. ina maanta laga bilaabo caruurta daryeelkan haysan waa shay qurux badan, qofkii dareen leh ama qofkii inuu dhiig leh inuu maaragtay dareen leeyahay oo ka damqanayo marka waa daahfur. bandhig faneedkan ayaa wuxuu ahaa mid dhaqaale loogu ururinayo dadka darbijiifta ah ee ku dayacan caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Cabdiraxiin Cabdullaahi, Honkable TV, magaalada Muqdisho.